waxa muhiim ah in la xuso dadkii wafdiga ahaa ergada ahayd oo ka timid waqooyi ma aysan gorgortamin mana aysan weydiisan waxay ku bedeshaan midnimadooda ma aysan weydiisan taas waxay cadeynaysaa inay ahaayeen runtii dad wadaniyiin ah dad raadinayay dowladnimo dad raadinayay midnimo dad gob ah inay ahaayeen koonfurtii aabayaasheen ay ahayd inay yiraahdaan waad nagu soo darsateen shuruud la'aan see wax u qaybsanaa see wax u rabtaan ma dhicin waxay ku qanceen wafdigii ka yimid gobolada waqooyi wax alla wixii koonfur ay rabtay oo aysan iyaguna qaybtoodii awood qaybsiga aysan ka helin iyo ku qanceen halkaasi dowladnimadeena waa nagu dhalatay xornimadeena waa qaadanay laakiin muddo 7 sano kadib yaa wixii khaldamay la saxay oo sidii sax ahaa wax loo qaybsaday koonfur iyo waqooyi muddo yar ka bacdina dee isbedel baa dhacay waxaa la wareegay dowladnimadii military ciidamadii baa la wareegay waxaa laga shaqeeyey ama la bilaabay mabaadiic cusub oo hanti wadaag la yiraahdo ilaa dagaalkii 77 dadkii inta badan ma fahamsanayeen hanti wadaag dagaalkaasi runtii dhibaato weyn ayuu noo geystay iyo dhaawac ayuu noo geystay aad bay dowladnimadeena ugu daciiftay dadkeennii waa niyad jab badan baa ku yimid dhaqaale xumo badan baa dhacday halkaasi runtii dhib badan baa ka yimid waxaa bilowday jabhado oo sheeganaya in cadaalad darro ku dhacday oo sheeganaya cabasho badan iyagoo ka sheeganaya systemkaas markaas jiray halkaasi dee waxaa ka faa'iidaystay dowladihii dariska ahaa khaasatan Ethiopia oo qaarkood soo hubaysay annaguna dee waa ku hubeynaynay oo jabhadaan u sameynay halkaasi runtii dagaal sokeeya ka bilowday dagaalka sokeeya ma bilaaban 91dii dagaalkii sokeeye waqtigaas ayuu bilowday ilaa 88dii dib weyn uu ka dhacay gobolada waqooyi ee Hargeysa khaasatan oo dad badan ay ku nafwaayeen dib badan oo ka dhacay dhaawac badan oo ka dhacay qax badan oo dhacay hanti badan ay burburtay waxaa ku soo xigtay 91dii oo dee dagaalkii sokeeye uu meel walba gaaray dowladnimadeennii iyo sharafkeennii iyo sumcadeennii iyo midnimadeennii kulli aan ku weynay haddaba haddaan joognaa waxaa la rabaa meeshaan uga socon lahayn inaan aadno oo cadaaladda ah marka waxaa loo baahan yahay garawshaa loo baahan yahay in wixii xumaa u dhacay la iska cafiyo wax alla wixii chapter madow ahaa oo taariikhdeena galay inaan saxno macnaheedu waxay tahay dhibkaas ka dhacay waqooyi inaan cudurdaar aan ka sameeyno inaan cudurdaar ka sameeyno inaan raali gelin ka sameeyno dadkaas waalaheena ah intii dhimatay iyo intii dhaawacantay aan raahno taariikh xun bay ahayd wixii dhacay waa waxaan soo marnay runtii wixii halkaas ka dhacayna wixii ka dambeeyay koonfur oo waqooyi ku duusha ma ahayn wax qabiil ku salaysan ma ahayn waxay ahayd system dawli ah oo markaas jiray anigoo madaxweynihii qaranka ah inaan cudurdaar ka sameeyo oo raali gelintaas aan gaarsiino walaalaheen reer waqooyi idinkan ila qaadataan dhanka kale dadkii iyaga naftooda qoryaha watay oo dagaalamayay iyaguna naftooda cudurdaar baa laga rabaa